السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خيارك وسود هذا مركلة إيه كنال كيني ما أنت عشر كينو وحلقة دي لبعض يصير اللوسو قليو تمبريد قصد يقرال وبسيط كأنه صاني عشر كي كوريا أيا وحو أها حبكا لوصاني وبسيط بلوغرا إن شاء الله ما أنت عشر كينو وحين كسو قادنا وبسيط كأنه صاني سيدا إنو سو قلناهين qoraal video iyo inuu ka bedelina muuqaal ahaan qaabka uu soo baxay website-keenu hadaba ku soo dhawaada mar kale iyo kanaalkeena marka horeysa marka aad kanaal aad furato website-kaaga aad furto marka aad tiraahdo view blog marka aad tiraahdo view blog wuxuu ku tusayaa qaabka uu yahay imika justan qaabka uu yahay markaas qaab ahaan imika waa kan website-keeni marka waxaan doonaa in ka bedelno qaabkan uu u sameysay kadibna aan qaab kale insha Allah aan ka dhigno template-kan iyo laba soo hadaba waxaad sameynaysaa marka ugu horeysa in aad tab furato kadibna tabka aad ku qorto blogger template kadibna enter ayaad oranaysaa markaad enter tiraahdo linkigan ugu horeeya ayaad ku dhufanaysaa blogger template 2017 kadib markaad ku dhufato waxaa kuu soo baxay template ayaa mid kamid ah aad dooranaysaa imika tusaale ahaanba haddii aynu kaa doorano click ayaad ku siinaysaa kadib marka aad ku dhufato waxaad sameynaysaa in aad degsato oo download ku sameyso template-kan kadib halkan ayaad ka download garanaysaa download markaad ku dhufato wuxuu kuu soo saaray barnaamijkii aad wax ku download garanaysay kadibna waxa aad dooranaysaa halka aad ku download garanayso desktop-ka documentiga meesha aad adigu aad la rabto kadibna download ayaad oranaysaa markaasaa ujeedaan waxay ku xiran tahay hadba internet-ka aad haysataa xawaaraha uu leeyahay ay ku xiran tahay markaas insha Allah inaga waqtiga ayuu qaadan doonaa waxaan iska sugaynaa kadib marka uu download-ka kuu dhameeyo waxaad sameynaysaa in aad website-kaaga ku noqoto kadib website-kaaga waxaad sameynaysaa inaad halkaa ku dhufato ay ku qoran tahay demis ayaad ku dhufanaysaa markaad demis ku dhufato waxaa kuu suuragelaya in aad soo geliso template-kii cusbaa haddaba laba qaab ayaad u soo gelin kartaa qaabka ugu horeeya waxa weeyaan adigoo halkaa ku dhufanaya backup and restore kadibna marka aad ku dhufato haddana browse aad ka dooranayso kadib meeshii aad ku save garaysay tegaya oo halkii imika halkan ku save garayn kadibna halkan ka soo dooranay qaabka labaadna waxa weeyaan inaad halkan edit tiraahdo aad kadibna aad halkan maxay ahayd aad ku baasti garayso html maxay ahayd aad sidatay insha Allah haddaba waxaan sameynaa inagu in habkan qaadano oo aynu habkan ku sameyno insha Allah markaas kan hore ayaad iska masaxaysaa kan waad iska masaxaysaa waxaad sameynaysaa inaad control plus a taabato kadibna aad xarfaha kamid taabato keyboardka kadib marka uu masaxmo waxaad u tegaysaa kii aad soo dejisay ayaad tegaysaa kadibna waxaad sameynaysaa in aad extract here aad extract ayaad oranaysaa extract kadib markaad extract tiraahdo waxaad dooranaysaa ka ay xaggan hore eeg ka ay ku qoran tahay xagga dambe ka raacsan tahay xml ayaad dooranaysaa ka ay ku qoran tahay waa kuri xml kadibna waxaad sameynaysaa right click isaga kadibna waxaad soo open with marka waxaad dooranaysaa notepad igu fur ayaad oranaysaa notepad igu fur kadibna notepad kugu furo waxaad sameynaysaa in aad taabato control plus a kadibna control plus c si aad u koobiso control plus a oo highlight ah iyo control plus c oo koobi ah ama right click kadibna koobi marka waxaad tegaysaa website-kaaga adigoo koobigiisita marka waxaad sameynaysaa inaad halkan ku baasti garayso
basti ayaad ku qoranaysaa halkan kadib markuu halkan kuu soo galo save ayaad oranaysaa save them ayaad oranaysaa kaas wuu inoo save garanayaa wuxuu inoo save garanayaa kan cusub ayaan ku baasi garanay kii horena remove ayuu oranayaa marka inta inoo save garanay ayaan iska sugana insha allah waqti badan qaadan maayo haddii aynu sii eegno bal bloggeena inuu inoo dhameeyey markaas aynu sii eegno waxaynu arki karnaa isaga oo ka bedelmay muuqaalkii hore iska bedelay oo muuqaalkii aynu soo degsanay ku sii karay iminka waa kan websitekeeni muuqaalkii hore wuu remove gareeyey muuqaal cusubna wuu inoo soo geliyey dabcan waa aad buu uga qurux badan yahay kii hore kana aad uga qurux badan run ahaantii marka la eego ka isuma dhawa inoo soo geliyey haddii xitaa iminka view siin lahna blogga ina tus waa ujeedaan caadi buu inagu soo geliyey kaas kan cusub ayuu inagu soo marka waxaanu sameynaa in aynu post cusub soo gelino si aynu haddaba post cusub usoo gelino waxaad ku dhufanaysaa halkaa post ay ku qoran tahay kadib marka aad ku dhufato waxaad ku dhufanaysaa haddana halkan new post marka aad ku dhufato halkan waxaad sameynaysaa in aad halkan ku qorto wixii aad soo gelinaysa video ha noqoto linka ha noqoto sawir ha noqoto halkan ayaad soo gelinaysaa haddaba si aad usoo geliso video ama linki marka ugu horeysa titleka halkan ayaad ku qoraysaa halkan ku qoranaysid halkaas sare ayaad ku qoraysaa kadib waxaad soo gelinaysaa hadba wuxuu yahay ayaad ku qoraysaa halkan tusaale ahaanba waxaynu odhanaynaa titleka videogan sida loo sameeyo website oo kale inkastoo aanu casharkan haysta loo sameeyo website haddana inagu uma jeedno wax kale tusaale ahaan ayaan uga jeedanaa kadib marka titleka u sameyso halkana yaroo faahfaahin ayaad ku qoraysaa waxaad sameynaysaa halkan ka daawo oo kale markaad ku dhufato waxaad sameynaysaa inaad linki u sameysaa halkan si uu kuu geeyo youtube-ka kadibna halkan ka daawo markaad sameyso waxaad sameynaysaa in aad halkan aad highlight saarto halkan ka daawada in aad highlight saarto kadibna aad tagto link haddaba saad linki aad marka hore linkiga waa in aad sidataa marka hore firstly waa inaad linkiga sidataa kadib youtube-ka ayaad tegaysaa waxaad casharada mid ka mid ah ayaad linki ka soo qaadaysaa linkigooda ayaad soo qaadaysaa ama waxaad sameynaysaa in aad google-ka si toos soo tagto kadibna aad soo qaado linkigan aad soo qaado maxay tahay website-kan aan ka soo qaadan template-ka inaad linkigiisan soo qaado koobi markaad tiraahdo website-kaaga aad tagto kadib halka linkigii linkigii aad ku baas garayso kadib iminka halkan ka daawo markaad highlight saarto linki ayaad ku dhufanaysaa kadib halkan ayaad ku baasti garanaysaa baasi ayaad ku dhufanaysaa kadib halkan wayna sax ku saarnaa kadib okay ayaad oranaysaa ujeeda halkan calaamad yaro waxay soo bedeshay color bayar colorkan waad bedeli kartaa colorka doontaad ka dhigi kartaa casan baad ka dhigi kartaa halkan linkiga waa kan iminka markaas waxaad sameyn kartaa oo kale in aad video si toos isku geliso waxaad tegaysaa halka ay calaamada video insertiga ayaad tegaysaa kadib waxaad laba qaab ay kusoo dhigay inaad youtube-ka kasoo qaado iyo in aad computer-ka kasoo qaado markaas youtube-ka ayaynu kasoo qaadanaa halkan youtube-ki ayaynu ku qoranaa iminka tusaale ahaan channelkeena ayaynu halkan ku qoranaa si aynu uga soo qaadno video uga soo qaadno marka kuu soo baxo videoyada mid ka mid ah ayaad double click ku dhufanaysaa double click markaad ku dhufato si toos ah ayuu website-kaaga usoo dhexgelayaa video ayuu soo dhexgelayaa kadib markaad intan aad soo geliso waxaad sameynaysaa qoraalka aad u sameyso color aad u sameyso waxaad ku qorayso meesha iminka tusaale ahaanba halkaa video dushiisa
qoraalkan ku dul qorayaa wuxuu isu bedelaya waa aragtaan inuu casaan isku qorayo haddaad casaanka waad ka bedeli kartaa waxaad ka dhigi kartaa kaa ayaad ka dhigi kartaa ujeeda hadba kalarkan doorto ayuu yeelanayaa midabkiisa waxaad samayn kartaa oo kale in aad halkan farta bool ka dhigto ama aad underline ka dhigto intaad highlight saarto underline ka dhigto ama aad bool ka dhigto kolba sida aad normal ama aad maxay ahayd aad farta kolba habkii aad doonayso aad ka dhigto kadib markaad intaas samayso waxaad samaynaysaa in aad tiraahdo publish aad tiraahdo publish garee isoo dhig maxay ahayd website-ka caadi igu publish garee kadibna publish eeda oranaysaa kadib markaad publish tira si toos ayuu publish u noqonayaa uu u gelayaa website-kaagii ayuu si toos u geliyaa waa ujeedaa waa ka qoraalkii aan ninka qorayay waa ka halkaa isku soo qor casharkani intaas ayaan ku dhaafayaa ha ilaaween ina channel subscribe iyo like saartaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh